9 qof rayd oo ay ku jiraan 2 caruur ayaa ku dhintay 30 kalena way ku dhaawacmeen weerar Turkiga uu ku qaaday gudaha dalka Ciraaq sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Telefishinka Ciraaq ayaa sheegay in duqeymo culus lagu garaacay goob loo dalxiis tago oo ku taala magaalada Zaaqo oo dhacda xadka gobolka Kurdistaan ee Ciraaq iyo dalka Turkiga. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal. Saraakiisha Ciraaq ayaa waxay ku eedeeyeen Turkiga inuu ka dambeeyo weerarkaasi, balse Ankara ayaa beenisay in mas'uul ay ka tahay dhacdadaasi. Madaxa gobolka Zaaqo Mushira Bishaar ayaa sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal ka yimid Carabta Ciraaq oo u badnaa kuwa ka yimid bartamaha iyo koonfurta dalkaasi. Bishaar ayaa intaasi ku daray in dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal u yimid tuulada buuraleyda ee Baaq ee gobolka Zaaqo si ay uga badbaadaan heerkulka ka jira koonfurta dalkaasi. Caamir Cali oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee magaalada Zaaqo ayaa warbaahinta u sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen 2 caruur, 3 rag iyo 3 dumar. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi ayaa ku tilmaamay dhacdadan mid lagu weeraray madax-bannaanida Ciraaq, waxaana golaha wasiirada amniga oo madax ka yahay Al-Kadhimi ay go'aansadeen in ay amar ku siiyaan wasaaradda arrimaha dibadda inay u yeerto safiirka Turkiga ee Ciraaq oo ay u sheegto sida ay Baghdad u cambaarayso dhacdadaasi. Golahu waxa uu Turkiga ka dalbaday raaligelin rasmi ah iyo in ciidamadooda ay kala baxaan dhulka Ciraaq. Golahu waxa uu sidoo kale faray wasaaradda arrimaha dibadda inay diyaariso feel ku saabsan weerarada soo noqnoqda ee Ciraaq ee ku wajahan madax-bannaanida Ciraaq iyo in Ciraaq ay gudbiso cabasho la xiriirta faragelinta Turkiga oo ku haya in u gudbiso Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa dhankeeda sheegtay in ay ka xun tahay falkaasi, balse waxay sheegtay inuu ahaa weerar argagixiso. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda ayaa tacsiye u dirtay dowladda Ciraaq, shacabka iyo ehelada dadkii ku dhintay dhacdadaasi, iyadoo sidoo kale caafimaad degdeg ah u rajaysay dadka ku dhaawacmay weerarkaasi. Bayaanka ayaa lagu sheegay in Turkiga uu ka soo horjeedo weerar kasta oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka, waxaana lagu sheegay inuu la dagaalamayo argagixisada sida waafaqsan sharciga caalamiga, isagoona si weyn u tixgelinaya nolosha dadka rayidka iyo kaabayaasha rayidka.